يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي. kala tagu waa dilaa balse wuxuu ina barayaa sidii aan ku noqon lahayn kuwo awood leh. waxaad noqonaysaa qof xun goortii aad bilowdo inaad dadka kula dhaqanto ayaga dhaqamadooda ee adigu marnabaha ku daysan dadka ee adigu ahaw midka wanaagsan ee habdhaqanka wanaagsan bilaaba si ay dadkuna markaasi kuugu daydaan. ha ka dalban daryeel qofna waayo si kastaad uga dalbato waxaa uun ku daryeeli doona midka ku jecel ee ku danaynaya. quruxdaadu waxay kuu soo jiidaysaa aragtida dadka wanaaggaaguna wuxuu kuu soo jiidayaa quluubta dadka. haddii aad doonaysid inuu shay kuu hirgalo ha ku sheegin dadka hortooda keliya mar kasta u sheeg naftaada inay waajib ku tahay inay ka dhabayso waxaasi. haddii ay noqoto magaaladu duur baadiye ah shardi ma ahan inaad adiguna noqotid xayawaan. haddii aad weyso qofaad jeclayd waxaad maalin kale heli doontaa qof wanaagsan oo kaaga wanaagsanaan doona qofkii hore ee kaa tegey. balse haddii aad weysid labadaada waalid weligaaga ma heli doontid qof kuu buuxiya booskooda. laga yaabee inay aad u soo daahaan waxyaabaha quruxda badan balse maalin unbay imaanayaan. si kasta uu u dheeraado wakhtigu lama helayo qof aanan murugoonaynin balse waxaa la helayaa qof markuu murugooda soo xasuusta keliya waxa uu u murugoonayaba inay tahay adduunyo kadibna iska dhoola caddeeya. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu noloshani inoogu dhammeeyo farxad iyo raynrayn kadibna aan ka tagno annagoo faraxsan aynuna ka mid noqonno kuwa ku waara jannatulfirdowsi alaclaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu dhammaanteennaba inaga dhigo kuwa ku guulaysta labada daarood. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.